dunida xilligan waxaa ka go'an in Soomaaliya ay ka hanad qaado dawladnimo taabagala geediga dawladnimada Soomaaliya kolka laga yimaado isku dayadii ka horeeyay sanadkii 2012 waxa intii ka dambeysay soo socday sidii hayaanka dawladnimo hana qaado noqon lahaa waxaa loo guuray nidaam federaal ka soo daneeyayaasha Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Soomaalidu bay isku sii waarkayeen inuu noqon karo xalka kaliya ee meesha ka saari kara siyaasadii qabqablayaasha iyo fikirka diinta islaamka lagula soo dhuuntay kadibna lagu halaagsamay madaxweynihii hore Soomaaliyada federaalka u guurtay mudane Xasan Sheekh Maxamuud xilligiisii ayuu ahaa waqtigii la sameeyay maamul goboleedyada kuwaasi oo ka koobnaa 5 maamul goboleed oo kala Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Puntland waxaa soo baxday arrin cakis ku ah kadib yagleelidii ujeedadii loogu guuray federaal isla markaasina caqabad ku noqotay inuu midho dhalo macnihii weynaa ee salka ku hayay ka taqalluska siyaasadii qabyaaladu shacabka u ahay iyo tii cadaawaha diinta soo hulaabtay dhiigga shacabka ku xalaalaystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu waajahay marxalado adag oo kaga timid dhinacii madaxda maamul goboleedyada waxa dib u abuurmay sawirka foolxunkii laga guuri rabay waxaa qarka loo jirsaday in la galo geedi kale oo ummadii kub iyo dowda kaga jabto warbixintan waxaynu daaha kaga qaadaynaa xaqiiqadu waxay tahay halka laga kicila yahay halkii laga dhaqaaqi lahaa waxa loo dhaqaaqi waayay waxaynu kala warbixinteenan ku iftiiminaynaa khilaafka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada federaalku muxuu salka ku haya ma madaxda haatan talada haysta ayaa ah kuwa iyagu doonaya inay burburiyaan maamul goboleedyada mise madaxda maamul goboleedyada ayaa ah kuwa gebi ahaanba ka dhan ah dawladnimada lafteeda aasaasihii nidaamka federaalka Xasan Sheekh Maxamuud aan dib u milicsanno wixii ku dhacay yay ahaayeen shakhsiyaadkii uu ka dhaqaaqi waayay isku daygii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ee geediga federaalnimada kadib kolkii uu hirgeliyay nidaamkaasi maamul goboleedyada caqabadii u horeysay ee ka hortimi waxa hormuud ka noqday madaxweyne Axmed Madoobe si mar kale dawladda federaalku uga shaqeyso inuu Jubbaland madaxweyne ka noqdo waxa uu sanadkii 2013 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka ballan qaaday haddii la doorto inuu qayb ka noqon doono dhismaha dawladnimada iyo waliba rabitaankii Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa ciidamo heer federaal ah iyo xoreynta Jubbooyinka kadib kolkii doorashadii Jubbaland ee waqtigaasi lagala shaqeeyay sidii uu soo bixi lahaa waxa nidaamkii Xasan Sheekh Maxamuud garwadeenka ka ahaa bilaabeen dhismaha ciidamadii federaalka taasoo tijaabooyinkii dhismaha ciidamadaasi ee dawladda dhexe ka amar qaata Xasan Sheekh Maxamuud ka bilaabay maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu Kismaayo u diray waqtigaasi wasiirkiisa gaashaandhigga ee dawladda federaalka si uu halkaasi uga suurtageliyo dhisidda ciidankaasi wasiirkii gaashaandhigga oo xilligaasi ahaa Cabdixakiin Fiqi wuxuu tagay magaalada Kismaayo dhismaha ciidamada federaalka si uu Kismaayo uga hirgeliyo wuxuu shirar la yeeshay madaxda dhaqanka beelaha halkaasi degan waxaanu shirarkaasi kadib hore ka bilaabay diiwaangelinta ciidamadaas waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii maaragtay ciidanka aan ugu sameyn lahayn dib u habeen iyo sidii ay xuquuqdoodan ay dawladda ugu siin lahayd waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo logistical support iyo taakuleynta ay u baahan yihiin waxaan kaloo aad ugu wada hadalnay sidii loo dardargelin lahaa la dagaalanka al-shabaab iyo howlgelinta ciidanka oo dib loogu xoreynayo weli goobaha ay gacanta ku hayaan waxaana isla garanay runtii waxyaabo badan iyo qorshe badan oo aanu doonayno inaanu ku dardargelino arrimahaas aanu ku wada hadalnay Axmed Islaam Madoobe tallaabadaasi gebi ahaanba waa uu ka horyimid wuxuuna ka baxay ballanqaadkii doorashada ka hor ee ahaa in la helo ciidan qaran oo isku jira diidmadaasi kadib waxa Axmed Madoobe u duulay Nairobi Kenya tallaabadaasi oo filan waa ku noqotay xukuumaddii waqtigaasi ee Xasan waxay muujisay in hogaamiyaha Kismaayo Axmed Madoobe yahay caqabadda ugu weyn ee ka hortimi nidaamka dawladnimada ee federaalka wasiirkii gaashaandhiggu wuxuu isku dayay inuu hawshiisa iska sii wato xarakada al-shabaab Kismaayo ayay gudaha u soo gashay warshihii wasiirku waxaa ku habsaday dagaal al-shabaab Kismaayo dhexdeeda kula dirirtay
taasi waxay mar kale daaha ka fayday in Kismaayo ciddii Axmed Madoobe raalli ka ahayn ay khasab tahay in kooxda xarakada al-shabaab ay gudaha Kismaayo ku kulmaan dagaalkaasi iyo sababihii keenaya sidii shabaab Kismaayo ku soo gashay waxa magaalada Nairobi isla waqtigaasi wax lagaga weydiiyay Axmed Madoobe waxaanu dagaalkaasi ku sheegay in wasiirka gaashaandhig mas'uul ka yahay oo uu Kismaayo ka bilaabay dhismaciida iyo shirar aan loo baahnayn dib aan ugu noqono dagaalkaasi khasaaro dhibaatada iyo khasaaro way sii badanaysaa al-shabaab ninana lama jiraan ninana uma turayaan dadkaas oo dhan shabaabka iyo kulli waxay ku yimaadeen shaqo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka uu ka waday magaalada Kismaayo oo ahayd inuu qabaa'iladiisi ula shiro oo yidhaahdo dagaal hala isu imaada hala isu yimaado waa ka dignay dhowr goor hore dadkii uu markaa wax badan oo u jeedinayo ansaxahay isugu yeedhayo xataa kuwa ciidamadaha uu dhex galay oo leeyahay reebel wiilashiina la soo baxa waxaasaan idiin qabanayna reebel wiilashiina la soo baxa saasaan idiin yeelayna qabiil loo geliyo in badanoo maangaab oo maskaxdooda si loo khalday oo badan oo isleeyahay mas-uuliyaddeeda lalama wadaagayno wasiirka gaashaandhigga iyo dowladda federaalka iyo tiimkii ay soo dirteen aasaaska shabaabku calaa cilmin bay ku soo galeen iyadoo la ogyahay waxaa kaloo idiin sheegaynaa inayna jiri doonin qori dambe oo aan dowlad goboleedku lahayn inuuna ka sii jiri doonin haddii ilaahay yidhaahdo deegaanka Sheekh Axmed Madoobe xilligaasi wuxuu ka baxay ku meel gaadhnimadii 2 sano ahayd wuxuuna ku guuleystay mar labaad in loo doorto madaxweynaha Jubbaland intaynaan u gudbin dariiqii cusbaa ee uu jeexay si dowladda dhexe lafteedu uga amar qaadato balaan dib ugu noqono Axmed Madoobe iyo ballanqaadkiisii golka 4 sannadood la doorto iyo bishii Abriil 2013 waxaa ka mid noqon doona barshabaab horta in waddanka inta kale laga xareeyo qodobka labaad gobolladani waxaa ka soo baxay Soomaaliya oo dhan buu ku filan yahay inay baahida dadku ka baxaan haddii ilaahay yidhaahdo ay Soomaalida kale waxay gaarsiin karaan gaarsiiyaan ta saddexaad in la helo waxa ugu muhiimsan ee aan isleeyahay waad ku faani kartaa waxa weeye xuquuq loo siman yahay oo qof kastoo muwaadina oo deegaanka ku nool uu u siman yahay oo waxa uu xaq u leeyahay inuu helayaa oo maanta kabaajuunka iyo kabantuuga iyo hebelka iyo nin walba intuu soo sharaxo uu sidaa u heli karayo tallaabadaasi Axmed Madoobe ku dhiciseeyay isku daygii dhismaha ciidamo heer qaran kadib waxa uu u kaba iliday sidii uu u yagleeli lahaa awood ka sarreysa tan dowladda dhexe taasi oo uu ku mideeyay madaxdii 5 maamul goboleed sanadkii 2014 bishii January 23 ayaa Axmed Madoobe socdaalkiisii u horeeyay awood goobida uu ku tagay magaalada Garowe halkaasi oo ay madaxweynihii Puntland iskula qaateen qorshihii uu latay sanadii 2015 ayay u suurta gashay in madaxweyne Axmed Madoobe ku guuleysto inay 5 madaxweyne ee maamul goboleed uu ka mid yahay iyo madaxweyne Xasan Sheekh ay ka wada arrimiyaan Soomaaliya arrimaha dibadda iyo kuwa gudahana isku si ugu wada taliya waxaana taasi keentay inaanay dhicin tallaabo aanay ogeyn inuu qaado Xasan Sheekh Maxamed shirar 6 madaxweyne oo garbahoodu siman yihiin ayaa dhacay kuwaas oo hadba meesha madaxda maamul goboleedyadu rabaan lagu qabto Garowe Kismaayo Baydhabo dadweynaha Soomaaliyeed nidaamkii federaalka oo rajo laga qabay noocaasi kolkuu noqday wuxuu ku riday kalsooni darro xooggan beesha caalamka iyo daneeyayaashii Soomaaliya waxay ku noqotay ka daro dibida Xasan Sheekh waxa uu muddaxileedkiisii kaga dhammaaday qancinta 5 madaxweyne oo yaan la dhaqaaqin heshiis ku ahaa kuwaasoo badhkood ka amar qaadanayay dowladda shisheeye kadib doorashadii 2017 uu talada Soomaaliya kula wareegay madaxweynaha haatan talada haya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayr waxa madaxdii maamul goboleedyadu dooneen mar kale inay u suurta gasho ku arriminta awoodda dowladda dhexe taasoo noqotay mid u cuntami weyday madaxweyne Farmaajo waxay madaxdii maamul goboleedyadu bilaabeen halkii xilligii Xasan Sheekh ay ka ahaayeen wada tashiga
inay ku dhawaaqaan gole cusub oo maamul goboleedyadu ku midaysan yihiin waxaa timi inay xidhiidhka u jaraan dowladda federaalka waxaa dhacday in uu buro isku day kasta oo dowladda dhexe ku doonaysay inay xal kaga gaadho khilaafkooda tallaabo kasta oo ka dhan ah dowladda federaalka oo madaxda maamul goboleedyadu qaadeen waxay la midab noqotay dib u curasho mar kale iyo qabqablayaashii oo shaambada sita shariif sakiin iyo xaaji xaaf dadaal dheer oo dowladnimada dib loogu yegleelayo kadib waxay macasalaameeyeen masraxii caqabadaha dowladnimo lagu curin jiray hase ahaatee axmed madoobe weli maya jubbaland waxay noqotay sacuudiga afrika oo ciddii isaga ka aragti duwanaata waxa uu ka tarxiilay kismaayo sharcigii iyo dastuurkii oo dhigaya inaan 2 jeer ka badan aanu qofku madaxweyne isu soo taagi karin wuxuu la mataanayay dastuurka jabuuti oo ma saddexaad ayuu intuu furtay weli taagay 8 sannadood islaam axmed talada haya ma jirto hal tuulo oo xarakada al-shabaab uu ka saaray wuxuu sadhistay ciidan u muuqda amniyaadkii axmed cabdi godane oo isaga kaliya ka amar qaata kismaayo shaqo la'aanta iyo dib u dhaca kolka laga hadlayo waxay ka mid tahay meelaha ugu liidata Soomaaliya dekada kismaayo wax isbedel ah cidi kuma sameyn axmed madoobe ciddii ka aragti duwanaatay oo arko inay madaxnimadiisa carqalad ku yihiin ma jirto wax ka celin kara in kismaayo dhexdeeda al-shabaab u timaado waxaa loo haystaa dad tiro badan oo uu muddada uu xilka hayay ka takhalusay kuwa uu naafeeyey oo nolol iyo geeri u dhaxeeyay dadka loo haysto waxa ugu dambeeyay suldaan rashiid isimkii lagu magacaabi jiray ee 7 ka hor halkaasi lagu dilay iyo suldaankii beesha jareer weyne oo isna ka sii horeeyay labadaasi isim oo ka mid ahaa madaxda dhaqameedka ka soo horjeeday inuu sii horjoogo waxa uu duusiyay xuquuqda dadkii kale ee Kismaayo u dhashay axmed madoobe يعني siduusan ehel u ahayn ama siduusan mataqaanaa qof ixsaan la u ahayn ama siduusan u ahayn qof ballan u ahayn dadkii la shaqeeyay oo dhan inuu dilay nin magaranaysaa uu dhaawacay sideedoo kale ama rag kale oo ilamida oo hadda ilaahay u nabadbaadiyey rag ka cararay rag magaranaysaa iska jiifo oo mataqaanaa bahalkii ah ay kulligood wada yihiin laga soo bilaabo maalinka bilowna ilaa maalinka maanta aniga waa kan ku sheegay oo dhaawac uu gaarsiin ilaahay baa badbaadiyey waxa weeyaan aakhiraan ka soo noqday waana suntii uu sameeyey iyo dhaawacii uu geystay weeyaan innocenti baan ka ahaa qaafil baan ka ahaa mid daacad u ah magaranaysa walaalkii aan moodayay laakiin dhibaatadaas hoos iga maleeyay inaan hadalno danta ayaa nagu qasbayso mar haddii xildhibaanada Soomaaliyeed matalaad ayaan ku joognahay matalaadii ay wax ka qaldamaan awalna shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ka raali gareynaya xildhibaanadaas sida muxuu ahaa in la'aanta u taageeray Axmed Madoobe oo ah qof muxuu ahaa ummadii Soomaaliyeed xuquuqdoodii baabi'iyay ku tuntay ninkii ugu dambeeyay ee hadda lagu dilay oo ahaa Suldaan Rashiid Cumar Rashiid muxuu ahaa Suldaan Rashiid Cumar oo lagu dilay Rashiid Cumar oo lagu dilay muxuu ahaa magaalada Kismaayo iyo suldaankii beelaha jareer weyne oo kasii horeeyay salaadiin kalena muxuu ahaa ay hore looga soo tarxiilay iyo dad waxgal ah oo Soomaaliyeed intaasna waxa ku dhigay ay yihiin Axmed Madoobe waxaa soo idlaatay haatan gabaadkii maamul goboleedyada iyo isxulufaysigii Axmed Abaanduulaha ka ahaa waxaan muuqan in xaalka doorashadu aan ahayn mid u soconaya sidii saaxiibadiisa Kenya ay rabeen Axmed Islaam Madoobe wax kasta oo ay ku qaadanaysay wuxuu ku bixinayaa sidii uu mar saddexaad u sii ahaan lahaa madaxweyne wuxuu samaystay madax dhaqameed badankoodu cusub oo xataa qaarkood ay yihiin ciidankii isaga ilaalinayay xildhibaano daacad u ah iyo guddi uu ugu yeedhay komishanka doorashooyinka u qabanaya taasi beddelkeeda daneeyaasha Soomaaliya dhismaheeda waqti badan ku soo bixinay waa beesha caalamka ayaa si naba ka siisan la umuhashada mar kale inuu istoorto dhinaca kale intuu dhistay in leeg oo xildhibaano madax dhaqameed iyo komishan ah waxa ayana dhistay murashaxiinta uu u diidan yahay inay la tartamaan oo doonaya haddii uu istoorto inay iyana istoortaan
dib aan ugu noqonay Axmed wuxuu uga cabsi qabaa inuu qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo dunida dimuqraadi ka tahay 7 sannadood ka hor maanta oo kale aan dib idiin celiyo أنا waxaan isleeyahay waxa ugu weyn isleeyahay waad qabanaysa kaabayaasha dhaqaale la dhisayo waxbarashadii noloshii asaasiga ahayd caafimaadkii qodobka labaad gobolladani waxa ka soo baxay Soomaaliya oo dhan buu ku filan yahay inay baahida dadku ka baxaan haddii Ilaahay yiraahdo ay Soomaalida kale waxay gaarsiin karaan gaarsiiyaan ballanqaadyadiisi beerihii ma jiraan wax soo saarkii mooye al-shabaab iyo jubbooyinkii laga xoreynayay ha jooge inta la xasuusto 2 jeer oo Axmed federaalku doonay in ciidamo loo dhiso iyo mar kale oo doorasho xalaal ah in la qabto la doono al-shabaab Kismaayo ayay soo gashay oo marna dagaal kula gashay wasiirkii gaashaandhigga xilligii Xasan Sheekh mar kalena qarax ka fulis mar kale aan ku noqonay dadka siyaasadda ka faalooda ayaa cartanka iyo kursi isku sii dhajinta heerkaasi gaarsiisan waxay ku fasireen inay la mid tahay sida aadamuhu u necab yahay in nafta laga qaado bal haddaba iyana aan dib adin xasuusiye Axmed Madoobe sida uu u diidan yahay saaxiibadiisii sala soo dhisay oo doorasho u taagan inay la tartamaan iyo 6 sannadood ka hor haddii la doorto inaanu mar dambe soo noqonaynin ballanqaadkiisii ka aadana marka intaas oo dhan laga soo tago laakiin anigu shayga ugu muhiimsan waxa weeye waxaan rajaynayaa doorashada ku xigta in uu ku guuleysto in reer goleed oo weligiiba xataa aan soo istaagin wadada oo loo diidana oo markay noqoto sanduuq cod lagu ridiyo nin waliba bannaanka wixiisa Kismaayo shacabka ku nool waxay soo weheshadeen muddo dheer nolol silic iyo saxariir u badan ma ay helin warbaahin u hadasha Axmed Islaam Madoobena waxa uu noqday مسؤول الشباب أي اسكو ساقين أنا إذن هقامين إذن هقامين ميست بلس إلى يومات أي كسيميه فعل كأه أن أني بنورا إذن كنا حبالة